Daliska guud ee ciidamada booliska Somaliland ayaa faahfaahin ka bixiyay weerarkii dablida hubeysan saaka ku qaaday saldhigga booliska ee magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal kuwaas oo la sheegay saaka arooriyadii hore rasaas ku fureen saldhiggaasi ku yaala magaalada Boorame taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Somaliland Sariye Guuto Faarax Maxamed Mire oo warbaahinta ugu warramay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in dablidaasi hubeysan saaka weerar ku soo qaaday saldhiggaasi ciidamada booliska ee magaalada Boorame iska difaac ciidamada booliska ee saldhiggaasi ku sugnaa isla markaana ay ka saareen gobolka iyo sidoo kale agagaarka magaalada Boorame Sariye Guuto Faarax Maxamed Mire taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Somaliland iyo sidoo kale faahfaahin ka bixiyay qaabkii weerarkaasi u dhacay saaka waa barigii waqtigii salaada koox yar oo qaswadayaal ayaa rasaas ku soo riday saldhigga dhexe ee Boorame ciidamada biliiska ayaa si geesnimo uga hortagay nimankiina eryaday ilaa xuduudda Itoobiya ay galeen eryanayay haddana gobolkii waa nabad weeye wax dhibaato kama jirto nimankiina xadka Itoobiya ka gudbeen qaarna waa laga qabtay wixii wareer dheeraadna dib ka soo sheegi doona xaaladuna way degan tahay gobolkuna waa nabad wax khasaare oo ka dhacay oo ciidanka soo gaadhay ma jiraan waxaana wax kastana maaragtay waxa weeye nabad ba ku sugan yihiin Soomaali Cabdi Axmed Karile Kalsan TV Hargeysa.